bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibayaal muuqaal kale cusub ayaan idin haynaa. Axmed Madoobe oo cafis ka dalbaday madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo ku soo hormaray magaalada Muqdisho. Haddaba sirta maxay tahay iyadoo labada ogyahay maamul goboleedyada dalka inay ku kulmi doonaan. Cafiskan ayuu wuxuu ku soo aadayaa xilli Axmed Madoobe uu ku darsaday hal sano oo dheeri ah iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku eedeeyay markii hore in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo laga yeelin in uu muddo kororsi sameysto. haatan isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo marka la fiiriyo waxaa kale talis ah Axmed Madoobe. marka hore madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayuu wuxuu ku eedeynayay inuu ka mid yahay dadka muddo kororsiga aad ku jecel. taasi bedelkeeda maanta Axmed Madoobe hadalkii gefku ahaa ayuu wuxuu rabaa inuu ka xaalmariyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, laakiin horey Soomaalidu waxay u tiri wax taga tiigsi ma lahan saan subaxeedna gadaal looma raaco. iyadoo taasi ay jirto haddana qaladaadkii ay ka galeen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ahaa dulmi cad, hadda xaqii ayaa feeraha ka soo dilaacaya. arrintaas marka waxay muujinaysaa in Axmed Madoobe oo wax badan soo arkay, maadaama dowladani Xasan Sheekh Maxamuud oo hogaamiyo iyaga ay isfahmi laayihiin. sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah ay dowladani iyo dowlad goboleedyada isku fahmi laayihiin in Xasan Sheekh Maxamuud hanaankii loo mari lahaa maamul goboleedyada uu fahmi laayahay, iyadoo ay careysan yihiin maamul goboleedyo fara badan. marka hore Axmed Madoobe ma uusan ka fiirsanin hadallada uu ku tuurayay iyo codotooda uu codowsaday madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyadoo labada ogyahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inta badan in ay iska riixayeen Deni iyo Axmed Madoobe. waxaa nasiib dara ah qof aad adiga marka hore garab siinaysay inaad haatan ka soo horjeesato adigoo sheegaya ninkaasi inuusan qaran dhise uusan ahayn uu yahay qaran dumis. waagi hore madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayuu ninkan wuxuu ku eedeynayay inuu yahay qaran dumis, laakiin haatan waxaa ka socda dalka Soomaaliya marxaladeeda. dhanka kale maamul goboleedyada ayaa waxay ku kulmi doonaan magaalada Muqdisho iyadoo ay ka wada hadli doonaan xaaladda dalka, iyadoo labada ogyahay inay isku dhacsiin maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya hanaanka wax loo mari lahaa ayaa ka marah waabsan ay leeyihiin dad badan oo ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyadoo labada ogyahay dadkii shalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku taageersanaa qabiilka ama qabyaaladda ay maantana eber joogaan, ay baraha bulshada iyo meediyaha meel kasta ka qeylinayaan. ma yaqaanin sababta ay u ceeriyeen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyagoo marka hore $5 ama lacago jeebka loo geliyay, kadibna qayladhaan iyo banaanbaxyo ka bilaabay magaalada Muqdisho. ciidankii shalay qaylinayay maanta mushaarari ay leeyihiin. xildhibaanadii soo doortay Xasan Sheekh Maxamuudne godkooda ayuu biyo ugu soo galay. ma yaqaanin waxa ay sameeyaan. xaaladda way cakiran tahay iminka. khilaaf xoogan ayaa ka dhex jira dowladda, sidoo kale isfaham daran ayaa jiro, iyadoo Soomaalida hore u tiri lawadii xaq daro ku heshiisa xaq ayaa isku dira. iminka dowladii marka hore ku heshiisay ama dadkii marka hore ku heshiiyey xaqdarada maanta xaq ayaa isku diray. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maanta wax ceeb ma lahan, iyaga ayay ceebta u soo hoyatay. siday aaminsan yihiin dhammaan nabad iyo nolol cidda taageerto iyo nabad iyo nololba inay ka mid ahaayeen kuwa dalkaani dhisi kara hogaankii sarena in lagu aamino mudnaa. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iminka waa tegay mana joogo, laakiin waxaa jooga qalbiga shacabka Soomaaliyeed. markii si loo fiiriyo iminka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shacabka Soomaaliyeed oo madaxweyne uma baho, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa madaxweyne u ah markii qalbiyada la fiiriyo, iyadoo labada ogyahay cid walbana ay ka warqabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka hore qaabka uu ku soo galay doorashadiisii ugu horeysay iyo markii uu tagayay. soo laabashada Xasan Sheekh Maxamuud wax micno ma aysan soo kordhinin farxaddii bulshada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen rajadii
iyo hamigii weynaa ay ka lahaayeen Soomaaliya way burburtay maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu soo laabtay, iyadoo la wada ogyahay marka hore isagoo la nacayo inuu tegay dalkani uu fowdo iyo qalalaaso amni geliyay intuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaanka hayay. taasi cid walba kama qarsano oo meediyaha ay dhex taalaa oo maanta qofka qabiil ama qabyaalad ku taageera isaga ay u taalaa, laakiin marka la fiiriyo muuqaalada baraha bulshada ka yaalo uma qalmo xitaa inuu madaxweyne noqde xitaa wuxuu u dhow yahay in maantadan la joogo dalka isaga laftigiisa loo aqoonsado waxyaabo kale. Isku soo wada duub dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxay ka rajo sugayaan shirkan maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya u dhaxeeyo. Si kasta ha ahaatee, maamul goboleedyada shirkani waxay u badan tahay inaysan isku fahmi doonin, sababtoo ah maamul goboleedyada waxa ay rabaan Xasan Sheekh Maxamuud ma doonayo, iyadoo la wada ogyahay tanaasulka farabadnaa uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Sheekh Maxamuud tanaasulkaas ma sameyn karo, sababtoo ah Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u bartay in dalkan isaga hoggaankiisa uu gacanta ku qabto, sidoo kalena uu rabo in wax isaga doonayo in la sameeyo. taasi beddelkeeda maanta shacabka Soomaaliyeed haddii iyaga talada gacanta laga saari lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dooran lahaayeen. taasi ma aysan dhicin, xildhibaano ayaa wax soo xushay, laakiin la arki doono sida ay wax noqon doonaan. Inta badan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kulley xaaladda Soomaaliya way ka deeriyeen. Qaar ka mid ah inta qabyaaladda raacday oo patriotism-ka aan aaminsanaynin ayaa inta badan waxaa la leeyahay waxay rajo weyn ka qabaan dowladdan uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, laakiin dadka cuqaasha caqliga u saaxiibka way fahmi karaan dowladdan inaysan wax ku soo maqnayn. Laakiin marka la fiiriyo rajada ummadda Soomaaliyeed, waddankan markuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo laabto ama qof isaga camal ah u yimaado patriotism-ka dad ku maamuli karo, waxaa la leeyahay dalkani uu sameyn karaa horumar, sidoo kalena wuu la jaanqaadi karaa dunida. Marka wadamada dariska ay sameynayaan, Soomaaliya ma sameyn karto ilaa laga helo qof dalkani ku maamuli kara doorasho qof iyo cod ah. Laakiin haddii aan ku jirno qabyaaladda, hadda wadamo waxaa noogu soo sokeeyay Djibouti, Itoobiya iyo Kenya kumana dhaqmaan waxa loo yaqaan 4.5 ee doorasho waxay ku galaan qof iyo cod oo shacabkooda ayaa wax doorta. Sidaas darteed, haddii Soomaaliya laga waayo qof iyo cod doorasho ah, horumar ballaaran ma sameyn karto oo weligeeda liiska meesha ugu hooseysa ay ku jiri doontaa. Laakiin xaaladda Soomaaliya alla ayaa u maqane. waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed u soo duceeyay Soomaaliya. intaan muuqaal noocan ah kulmeeno, sidaas nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.